السلام الله عليكم أصحاب تشرفت قيمها وصاحبك صاحبيال سو دوادا inkastoo aan beryahan idinka maqnaayo safar aan galay waan soo laabtay ciyaarihii caawa ayaan rabaa inaan yara falanqeeyo waxaa soo dhamaaday kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xasuuq waxay u geysatay kooxda Burnley sidoo kale Villa ayaa iyaduna maxaa la dhahaa waxay karbaashtay kooxda Southampton sidoo kale kooxaha Newcastle iyo Brighton ayaa iyaguna Newcastle ayaa 2-1 ku badisay sidoo kale kooxda Brentford iyo Norwich City kooxda Brentford ayaa iyaduna 3 ku badisay kooxda Wolves iyo maxaa la dhahaa iyo Crystal Palace ayaa iyaduna waxay ku badisay 2-0 Liverpool ayaa iyaduna mar dhow soo gali doonta waxaan la ciyaari doontaa kooxda West Ham United cagta ee Chelsea ayaa guul weyn ka soo gaadhay kooxda Burnley oo kaalmaha ugu hooseeya loogu noqdo liiga labaad ee Premier League kooxda Blues oo baryahan ku jirtay niyad jab ah in booskoodii ninka madaxweynahoodii Obranka oo kooxdan iska gadayo oo loo badinayo in nin Turkiyana uu iibsado kooxdii Chelsea ahayd waxa saameeyay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ka socday kaasoo saameyn weyn ku yeeshay waxaana adarka niyad jab ka muuqata kooxda kubadda cagta Chelsea sida macalinka iyo ciyaartooydoodaba marka kooxdii kubadda cagta ahayd ee Chelsea ahayd san doontaa Obranki iskala fadhiyay lacagta jeebweynihii Chelsea wax ka dhigay aan saga ka hortay aan cid aqoon kooxda kubadda cagta Chelsea odaygaasoo boorsadisa ka xidhxidhay magaalada London doonayana kooxdiisan inuu iska iibiyo maadaama uu koob kasta u qaaday oo ay saameyn ku yeesheen isagoo madax saaxiib la ah madaxweynahan aan qoslin ee Ruushka ah Putin kaas ayaana ku kaliftay in kooxda kubadda cagta kadib markay ku sigatay in lagala wareego kooxdaba ayuu wuxuu go'aansaday inuu iska iibiyo kooxdiisii kubadda cagta Chelsea oo ay kala dhaliyeen laacibada kala ah Kai Havertz ayaa 2 gool dhashaday sidoo kale ciyaaryahanka heer Mareykan Pulisic ayaa isaguna ku turtay Reece James daafici Chelsea indhow dhaawac kaga maqnaa ayaa soo laabtay markuu soo laabtay ayuu wuxuu ku turtay goolkiisii waana goolkiisii shanaad oo uu dhalinayo kooxda kubadda cagta Chelsea isaga ayaana ah daafacan ugu goolasho badan hadeer ayaa waxa bench la dhigay xoog weynihii Lukaku odaygii maxaa la dhahaa riixaye odayga aan dhaqaaqin ciyaartooyda iska riixaye Lukaku ayaa isaguna ciyaartan bench la geliyay kaasoo ciyaartooyga heer Jarmal ee Kai Havertz siiyay chance uu ku ciyaaro istrakaha beenbeenta ah linkaas laakiin marka goolka istrakaha laga ciyaarsiinayo waa gool magafe ciyaarta qaybtii hore aan wax goola la iska dhalin oo labada kooxoodba ay ku jireen is ilaalin iyo feeyignaan xagga daafaca haddaba Jorginho iyo Reece James ayaa fursadii ugu fiicneed lumiyay sidoo kale ka daafaca uga ciyaaray Antonio Rudiger ayaa isaguna laad awood badan ku toogtay goolka waxaase maxaa la dhahaa si adag iska tuuray goolkiibaha Bobby Burnley ayaa qaybtii ugu horeysay ama ciyaar daqiiqadii ugu horeysay heshay fursado fiican xagga Chelsea ka fiicna waxaana ciyaartaas isoo taagay daafacan khibradda leh ee heer Brazil ee badbaadiyaha ah ee hadda khibradda odaygan caadi ma aha odayga maartay Diego Silva ninkaas waa waxaan laga yaabaa waxaas waa 15 jir waxa moodaa ninka Cabdixakiin oo jooga berisamaadkii oo uga ciyaaraya daafaca Soomaaliya yaa berigan laacibku weyn hadda yaa waa kaftan intaasne qaybtii labaad ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay gool la'aan haddaba qaybtii labaad 2 daqiiqo oo kaliya markii ay socotay qaybtii labaad ayaa waxa goolkiisii ugu horeeyay ku tuurtay Reece James oo hoggaanka u dhibay kooxda kubadda cagta Chelsea dhinaca midig kala soo galay kubad uu soo tuuray daafacan timaha badan ee madow ee Afrikaanka ah ee asalkiisu uu yahay Chalaba kaasoo isaguna kubad uu celceliyay dhac intuu ka siiyay buu hadda ku qabtay yaa goolkaasna waa dhaliyay isagoo maxaa la dhahaa yaa daba marsiiyay goolkiibaha Burnley sidoo kale Kai Havertz ayaa 5 daqiiqo kadib waxaa 2 gool oo degdeg dhashaday Kai Havertz hadda waa Kai Havertz yaa 7 daqiiqadood oo kaliya ayaa u dhaxaysay inuu 2 gool oo ku dhashado oo degdeg ah wari ninkaas caadi maaha Chelsea inta wixii ka dambeeyay waxay sida daadka ugu yaaceen kooxda Burnley oo ku jirta kaalinta ugu hooseysa waxaana hadda afraad u dhaliyay laacibka heer Mareykan ee
Pulisic kaasoo ka faa'iideystay khalad ay sameeyeen daafaca Burnley. kubadda cagta Chelsea ayaa waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa. Odaygii Lukaku ahaada waa Lukaku, ninkaas waa iska xoog weyn yahayo ninkan aniga dhaamay Chelsea tolo aniga maxay istirka iga ciyaarsiin weyday saantan la dhaxmara sidaa ugu gooyo baan hadda goolasha ka dhadhalin lahaa. Subay iibsan doona Chelsea wareey fursad baad haysataa aad igula soo wareegtay laacibkan heer asalkiisu yahay Soomaaliga haddaan kubad helo ka hayaan hadda dheel baa yaqaana un baa yaqaana kubadaha sidaan u laado iyo sidaan u dhaliyo ya jaamac saaxiibkayna wuu arki jiray markaan isagoo daafac ka ciyaaraya jaamac say u taaganaan 2 gool ka dhashan jiray taas loo dhaxmaro sida marka hadaba intaas waa kaftan iyo maxaa la dhahaa maadaama ay indhaweydid ka maqnaa kooxda kubadda cagta ayaa hadaba waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa maxaa la dhahaa oo ay kubaddan ayayna ka faa'iideysteen waxayna xasuuqa u geysteen kooxda Burnley ee ku jirta kaalinta ugu hooseysa. kooxda Leicester City sidaan horeba idinku sheegay iyaduna 1-0 ayay waxay kaga badisay kooxda Leeds United. sidoo kale kooxda Aston Villa ayaa iyaduna maxaa la dhahaa waxay xasuuqday oo xasuuq u geysatay kooxda Southampton. hore Liverpool Coutinho ayaa waxaa la dhahaa casharo aan laga yaabay wuxuu ka dhigayaa kooxda Aston Villa ibkiisii hore Liverpool Steven Gerrard. ninkaas markuu Steven Gerrard ka hoos ciyaaraya caadi maaha. marka kooxdaas Aston Villa iyaduna waxay dhigatay oo cashar u dhigtay kooxda Southampton. kooxda Newcastle ayaa waxay ka badisay kooxda Brighton. Norwich City waa sii socotaa naadiga sanadka maanta waa ku daayay. marka Brentford ayaa iyaduna 3-1 ku garaacday. sidoo kale kooxda Wolves baa laga badiyay waxaana ka badisay Crystal Palace. hadaba intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa wararka ciyaaraha. hadhowna waxaan inoo soo falanqayn doonaa kooxda Liverpool. saaxiibayaal de koofiyada ii saaro inkastoo aan baryahan idinka maqnaa laakiin de meeshu waa meeradeeni inoo shida saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan sharaf iyo wanaag baan idin rajaynayaa.